balaba sokeeya saaxiibaho walaala laysku soo diraya markii laba saf loo go'e sanadii dhammaatee soo qashadu la dagay waxay tahay su'aashii kolba laba sokeeya saaxiibaho walaala laysku soo diraya markii laba saf loo go'e sanadii dhammaatee soo qashadu la dagay sori waanu ka xunahay siliciyo dhibtiinaba sintii way dhammaatee sawaariikhda naga gada sahal loo yidhaahdaa wasidaa ujeedadu warbixinta maanta hubka iyo Soomaaliya. Masar waxay Soomaaliya ku soo daadgureynaysaa ciidan iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Soomaaliya cunaqabatayntii hubka waa laga qaaday. Hubkii hadda waa fasax iyo caanayaa shuban. Dowladda Soomaaliya oo u oomanayd inay hub fara badan hesho. Hub aad u fara badan ayaa loogu deeqi doonaa. waxaa isaguna sii socon doona oo weliba xadhkaha goosan doona hubkii dalka Soomaaliya ka soo geli jiray xuduudaha dalalka deriska ah ee safka hore Ethiopia iyo Kenya. intaas waxa dheer hubkii ay dalka soo gelin jireen saaxiibada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo dhinaca kale hubkii suuqa madow ee ka ganacsiga hubka oo ay argagixisadu ka faa'iideysan doonto. sidoo kale dowladdu haddii ay hub fara badan hesho hubkan qayb ka mid ah waxay ku caawin doontaa maleeshiyaadka macawisleyda oo ay dowladda isku xulufo yihiin. sidoo kale qabiilada ay dowladda isku xulufada yihiin iyo hogaamiyaasha ay dowladda isku xulufada yihiin ayaa hubkan iyaguna qaybtooda heli doona. maamul goboleedyada koonfur galbeed, Puntland, Somaliland iyagu waxay u qaraab tegi doonaan oo hub fara badan ku soo hurgufi doona saaxiibadooda Ethiopia iyo Imaaraadka iyo dalal kale. markaas kadib xisaabta inoo soo baxday waxay tahay markii Soomaaliya cunaqabatayntii hubka laga qaaday bishii Disembar 2023 in Soomaalidu hubkii caalamku uu u fasaxay ay u qaybsatay 4.5. haddaba hubkan hadda ay dowladda Masar ay dalka soo gelisay oo la sheegay inuu yahay hub u socda dowladda federaalka Soomaaliya wax la yaab leh ma aha, maadaama aynu horeyba u soo sheegnay in hubku uu dalka horay ugu soo qulquli jiray haddana uu xadhkaha goostay kadib markii Soomaaliya cunaqabatayntii hubka laga qaaday. balse hubkan hadda ay dowladda Masar keentay ayaa wararku waxay sheegayaan in hubkani uu yahay hub isugu jira noocyada kala duwan ee hubkan oo maanta ku soo xidhay dekedda magaalada Muqdisho ayaa waxay wararku sheegayaan in hubkan hadda lagu gurayo gaadiid markaasi loogu talagalay inay geeyaan goobihii loogu talagalay. hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay laba qaybood. qayb lagu sheegay in dowladda Masar ay ugu deeqday dowladda Soomaaliya iyo qayb kale oo sida la sheegay ay isla dowladdu ka soo iibsatay dalkaasi Masar. warar kale ayaa iyaguna waxay sheegayaan in hubkan faraha badan qaybo ka mid a loogu talagalay ciidamada dalka Masar ee ku soo wajahan Soomaaliya. wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadooyinka ka soo baxa dekedda ilaa iyo xarunta gaashaandhigga ayaa la sheegay
in laamaha ammaanku ay xidheen inta uu howlgalka hubkan dejintiisa iyo geynta goobihii loogu talagalay ay socoto. haddaba hubkan sidaynu hore u sheegnay waxa uu ka mid yahay hubabka dalka u soo gelaya si xad dhaaf ah oo ka imanaya dhinacyo kala duwan kadib markii cunaqabataynta hubka laga qaaday Soomaaliya. balse hubkani waxa uu kaga duwan yahay hubabka kale waqtiga uu ku soo beegmay oo xasaasi ah, iyo in hubkan baaxadda weyn leh uu yahay hubkii ugu badnaa ee markaasi si toos ah oo aan qarsoodi ahayn dalka loo soo geliyo iyada oo uu sido markab weyn kadib cunaqabatayntii laga qaaday dalka Soomaaliya. sidoo kale hubkan wuxuu kaga duwan yahay hubabkii hore in waqtigan ay Masar rabto inay Soomaaliya ka dhigato goob ama masrax ay isku arkaan dowladda Itoobiya iyadoo taasi ka fiirinaysa danaheeda gaarka. balse dowladda Soomaaliya iyada dhankeeda ay dana gaar oo kooban ay ka leedahay heshiiskan iyo saaxiibtinimadan ay la galeen dalka Masar. haddaba hubkan hadda dalka soo gaadhay iyo hubabka kale ee dalka ku soo qulqulaya oo xadhkaha soo goostay oo aan sheegnay inay dhinacyo badan ka iman doonaan, dhinacyo badan oo Soomaaliyeed oo iska soo horjeedana ay hubkan ka faa'iidaysan doonaan, ayaa bal warbixinteennan waxaynu ku iftiimin doonaa. marka u horreysa hubka Soomaaliya sideedaba maxay tahay natiijooyinka ay ka heleen kadib burburkii Soomaaliya iyo hadda oo cunaqabataynta laga qaaday iyo waqtigii ay dalka Soomaaliya cunaqabatayntu saarnayd. bal waxaynu fiirin doonaa Soomaalidu hub urursigii, jacaylkii iyo xiisihii ay u qaadeen hubka, iyo inay hubka isu adeegsadaan si ay iyagu isugu muquuniyaan qabaa'ilada iyo kooxaha Soomaaliyeed. burburkii Soomaaliya kadib maxay ka faa'iideen? hadda oo waqtigaas laga joogo 34 sano kadib, xiisaha iyo jacaylka loo qaaday hubka, tartanka hubka loogu jiro, dowladdii Soomaaliyeed ee dib u heshiisiinta lagu dhisay, jacaylka ay u qaaday inay hub hesho oo geed dheer iyo geed gaaban ay u fuuleen in ugu horreyn cunaqabataynta hubka laga qaado. iyadana maxay ka faa'iidi doonaan Soomaalidu mar labaad jacaylkan ay u qaadeen hubka iyo tartankan hadda hubka loogu jiro iyo hubkan aynu sheegnay hadda inuu si xad dhaaf ah ugu soo qulqulayo dalka Soomaaliya. marka hore waxaynu fiirinaynaa waqtigii burburka Soomaaliya. Soomaalida waqtigii ay dowladda dhexe ee Soomaaliya burburaysay, qabaa'ilka, hogaamiyaasha siyaasadda dhammaantood waxa ay u xiiseen amase ay bilaabeen hogaamiye kasta iyo qabaa'il kasta inay hub helaan si ay uga adkaadaan qabiilka ama kooxda kale ee ka soo horjeeda. tartankaas loo galay jacaylka hubka iyo hub urursigu, hogaamiyaashii qabaa'ilka iyo hogaamiyaashii kooxaha Soomaaliya waxay ku kaliftay inay u holeelaan oo hub ay u raadsadaan dhinacaas iyo dalka Itoobiya. sidaan la soconno, hogaamiyaashii ugu caansanaa, siyaasiyiintii, saraakiishii sare ee Soomaaliya dhammaantood waxay iska xaadiriyeen waqtigii burburka Soomaaliya ee dowladdii dhexe ay sii burburaysay caasimadda dalka Itoobiya, Addis Ababa. halkaas ayaa laga soo hubeeyey kooxihii ugu horreeyey ee mucaaradka Soomaaliya. sidoo kale qabaa'ilka laftoodu, hogaamiyaashoodu halkaas ayay hub u raadsadeen. qaar kale lacagtooda iyo dhaqaalahooda ayay geliyeen sidii qabiil waliba uu hub u heli lahaa. jacaylka hubka ayaa waqtigaas xaddaaf noqday, waxaana lagu tartamayey kooxda ama qabiilka ugu hubka badan inay ku guulaysan doonaan inay qabaa'ilka kale xoog ku muquuniyaan amase awoodda dalka ay si dhib yar gacanta ugu dhigaan. arrintaas waxay suurto gelisay in dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburto
oo lafteeda dhinacyadaas mucaaradka ah hogaamiyaashii qabaa'ilka hubkii oo dalka ku soo batay qabyaaladii oo faraha ka baxday inay keento in hal mar ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburto oo meesha ay ka baxdo natiijooyinkii ka dhashay jacaylkii waqtigaas hubka loo qabay iyo hubruursigii waxay noqotay in hubkaasi ay isu adeegsadaan dhinacyada ururada hogaamiyaasha qabaa'ilka isla markaasina qolo waliba amase koox waliba ay isku daydo inay kooxda ka soo horjeeda xoog ku muquuniso taas oo sababtay dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay arrintaas natiijada ay keentay waa burburka hadda ay Soomaaliya ka soo kaban laadahay waxaana sabab u ahaa qabyaaladda kooxaysiga iyo hubkii oo la isku adeegsaday marka hubka iyo Soomaaliya waxay isku leeyihiin taariikh xeel dheer natiijooyin hore ayay Soomaaliya ka soo dhaxashay jacaylka hubka hubruursiga in hubka markaasi la isu adeegsado oo damacyadu ay noqdaan in xoog la isku muquuniyo taas waxay Soomaalidu kaga soo kabatay kadib markii la ogaaday natiijada ay leedahay qabyaaladda burburka colaadaha in dadka Soomaaliyeed ay ka daaleen taas in dalka ay ka bilaabatay sidii dadku ay isugu dayi lahaayeen nolosha rasmiga inay ku soo dhawaadaan waxaa meesha ka baxay hogaamiyaal kooxeedyadii markaasi dalka ku dagaalamay hubkan inuu dalka soo galo dowladdii dhexe inay burburto sabab u ah balse waxaa sii baaqi ahaa markaasi midhihii ay ka tageen oo ahaa maamulada dalka ka jira ee iyagana gobolaysiga ah kooxaha ku dhex milmay magaca nidaamka dowladnimo oo markaasi ku noqday dagaaladii hore iyo abaabuladii hore ay soo galeen inay haddana mar kale shaar dowladnimo soo xidhaan xaaladdan markii ay dhacday Soomaalidu si tartiib tartiib ah ayay uga soo kabatay waxaa la bilaabay shirar dib u heshiisiina in siyaasadda Soomaalidu ay ku qanacday inaan xoog la isku muquunin karin in nidaamka dawliga ah lagu raadiyo qaab wadar ogola isqancin ah nidaam federaali ah iyo nidaam dawli ah in la dhisto dabcan geedi socodkaas oo si tartiib tartiib ah u socda oo aan la gaadhin natiijooyinkii iyo yoolkii laga lahaa caqabado badanna ay hor yaalaan waxa ay ka soo dhashay oo midhihii ka dhashay u ahaa geedi socodka nidaamka dowlad dhiska ee hadda jira kaas oo soo socday 20 sano u dambeeyay ayna midhaheeda ka dhasheen dowladda ku meel gaara isu bedelay dowladda federaal ah dastuur ku meel gaar ah oo wax badan lagu heshiiyey qaybo badan ay qabyo ahaayeen beesha caalamka oo gacan ka geysatay sidii Soomaaliya ay uga soo gudbi lahayd casrul jaahiligii waxaa markaas awood badatay qoriga dhig oo qalinka qaad in dadku ay fahmaan in qalinka iyo maskaxda iyo caqliga oo laga shaqaysiiyo ay ka fiican tahay in xoog la isku muquuniyo dabaylo iftiin ayaa ka soo dhashay maamuladii si gaar ah ay u dhisteen deegaanadu sida Somaliland iyo Puntland maamulo dadka deegaan ku dhisteen tayaday dooran ha lahaadaan balse xasilooni ay halkaas ka bilaabatay koonfurta iyadana waxaa ka bilowday nidaamka dib u heshiisiinta iyo in la isku dayo in dalka Soomaaliya uu yeesho nidaam dowlad dhexe oo federaal ah oo heshiis lagu yahay oo aan ahayn dowlad awoodda hal meel la isugu keeno balse deegaanada iyagu awoodahooda gaarka ah yeeshaan dalkuna uu yeesho nidaam dawli ah oo federaal sida lagu heshiiyey qorshahaas oo hadda socda 34 sano kadib markii laga soo gudbay casrul jaahiligii jacaylka hubka loo qabo hub urursiga in hubka la isu adeegsado qabaa'iladu inay kala xoog bataan siyaasad ahaan in la isku muquuniyo in kooxo ay isku dayaan hub iyo ciidan inay madax ku noqdaan awoodda dalka iyo xukunka ku sii haystaan taas markii ilaahay 34 sano Soomaalida kama ina bogsanay si tartiib tartiiba ilaahay uga soo caafiyay beesha caalamkuna ugu yaraan ay kaalin ka geysteen inay cunaqabatayn dalka Soomaaliya ku soo rogaan inkasta oo cunaqabatayntaas lafteedu aanay suurto gelinin hubka dalka ku soo qulqulaya gebi ahaanba in la xakameeyo balse haddana waxa ay keentay ugu yaraan
in hubkaasi la xakameeyo oo dalka inuu si qarsoodi ah ku soo gala mooyaane aanu si babli ah oo lagu sharciyaystay aanu dalka ku soo gelin oo ay dowlad lafteedu rabta inay xukunka sii joogto ama shacabkeeda ku muquuniso ay markaasi sharciyad u hesho inay hub hesho taasi waxay gacan iyaduna ka geysatay cunaqabatayntaasi in geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya laftiisu uu noqdo mid suurtagal ah oo taabageli kara waxa ugu weyn ee sabab u noqday isku dayga beesha caalamku gacanta ka geysatay Soomaalida lafteedu ay dadaal ku bixiyeen in kalsoonidii la soo celiyo nidaam dib u heshiisiineed la bilaabo nidaam dowlad dhis ah oo la isla ogol yahay marba intii la gaari kara la sameeyo waxaa gacan ka geystay isla cunaqabatayntaas hubka lagu soo rogay dalka oo gacanta laga qabtay dowladihii dib u heshiisiinta ku dhismay nasiib darro 34 sano kadib waxaa loo xiisay oo mas-uuliyiintii ku timid dib u heshiisiintaasi laftoodu ay u xiiseen inay soo celiyaan jacaylkii hubka iyaga oo ku yimid nidaam dowlad dib u heshiisiineed waxa ay bilaabeen inay beeshii caalamka ugu dacwo tagaan in cunaqabataynta hubka laga qaado geed dheer iyo geed gaaban ayay u fuuleen waxa ay ku soo guulaysteen dhammaadkii sanadkii hadda tegey bishii Disembar 2023 isla waqtigaas waxaa soo laba kacleeyey jacaylkii iyo xiisihii loo qabay hubka in hubka la raadsado dhinac walba maadaama ay khatar ku soo fool leeyihiin inuu hub urursi bilaabo in la kala qaraab tago kooxihii magaca dowladnimada dib u heshiisiinta ku yimid markaasay bilaabeen inay hubka u qaraab tagaan heshiisyo fara badan ay dowladda la soo saxeexdaan si ay hub u helaan dhinacyadii kale ee dowladda ka soo horjeeday ama khatarta u arkayay haddii dowladdu hubkaas ay hesho oo magac dowladeed ay ku hesho khataraha ay gelin karaan iyaguna waxay u qaraab tageen saaxiibadoodii iyo dowladihii ay gacansaarka lahaayeen qaarkood jeebkooda ayay adeegsadeen oo hub soo siisteen sidoo kale qabaa'ilku waxay bilaabeen mar haddii dowladdiiba hubkii loo fasaxay iyaguna inay hubka urursadaan inay hubka soo iibsadaan hubka dalka soo gelaya qaarkood inay jidkooyaba u dhistaanoo ay beleliqaystaan sida dhacdayba amase haddaba socota qaar kale waxay bilaabeen inay dowladda shukaansadaan ku dhowaadaan si ay hub u siiso sheegaan inay argagixisada la dagaalamayaan markan hubkiibaa tartan loo galay waa 34 sano kadib dowladdii baa ugu horreysa hadda hubkan soo degay maanta kaasuu ka mid yahay kii hore ee masaaridu keentay hubabkaasuu ka mid yahay hubabka kale ee ku iman doona 6 dowladood inta ka badan ee dowladdu dib u heshiisiinta la gashay jacaylkaasuu ku imanaya hubabka toddobaadyadii u dambeeyey ka soo gelaya xuduudaha Itoobiya ee warbaahintu tabinayeen jacaylkaasuu ku imanaya waa mar kale iyo hubka iyo Soomaaliya oo hubkii loo xiisay jacayl kale loo qaaday jacayl dhigma lagu qoray waa jacaylkii hubka iyo 34 sano kadib oo ay markan nasiib darro horboodayso dowlad ku timid dib u heshiisiin iyo in ay markaasi samayso kalsooni qaran kii burburay lagu soo celin karo haddaba marka waxaa ku saas yahay marka aad qalin iyo warqad qaadato waxaad garan kartaa natiijooyinkii laga dhaxlay jacaylkii hore ee hubka hub urursigii in hubka la isu adeegsado in awood la isku muquuniyo isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hadda geed dheer iyo geed gaaban u fuulay in cunaqabatayntan hubka laga qaado ayaa khudbaddii jimcaha ee u dambeeyey afkiisa ka sheegay 34 sano Soomaaliya inay xoog isku muquunin weyde waa run wuu og yahay balse haddana damacaasi wuxuu dowladda ka galay in haddii hub fara badan iyo ciidan fara badan ay helaan ay gebi ahaan dalka la wareegi karaan ammaankiisa ku sugi karaan dowladaha dariska ah ee khatarta ku ah ay iskaga caabiyi karaan waa laba aragtiyood oo kala fog hadda oo lagu jiro 2024 ma jiri karto dowlad intay hub fara badan keensato ciidan fara badan samaysato xuduudaha dalkeeda xoog ku gaaraysa balse wax ugu yar uune hadda la samayn karo waa in la sameeyo kalsooni iyo dhinacyadaasi qaabka ay isugu soo dhowaan lahaayeen oo tartiib ah oo maskax iyo caqli badan lagu bixiyo hubkii hadda loo xiisay
oo dowladdii dib u heshiisiinta ku timid ay hormood ka tahay natiijadiisu hadda ayay bilaabatay. waa markabkii u horreeyey ee Soomaaliya soo gaadhay oo diiwaanka taariikhda geli doona hub Soomaaliya loo fasaxay oo public ah oo maraakiib ku iman doona oo diyaarado ku iman doona. markan bal haddaba aynu isweydiino markaynu intaas hore soo fahamnay maxaa laga faa'iidaya hadda haddii aynu hore uga soo hadalnay wixii hore laga faa'iiday aynu marka fursad siino saaxiibada qaba in wax badan laga faa'iidayo oo ah mas-uuliyiinta saaran tareenka uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taageerayaasha waddada u taagan ee caleemaha qoyan u ruxaya tareenkaasi lagu sheegay badbaadada qaranka. dhammaan dhinacyadan mas-uuliyiinta madaxweynaha jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya taageerayaasha caleemaha qoyan ruxaya waxay sheegayaan in markaan ay dowladdii guulaysatay in hubkan ka yimid dalka Masar iyo hubabka kale imanaya ay noqon doonto hubkii markaasi ay dowladnimadu ku adkaan lahay ku bulaali lahay hubkii lagu difaaci lahaa cadowga dalka damaaciku kaga jiro ee Itoobiya. ayagu saasay aaminsan yihiin balse jawaab uma hayaan hubkan iyo ciidan fara badan oo la keeno iyo ciidamada nabad ilaalinta ee dalka jooga ma keeni karaan dowladda ma u suuro gelin karaan inay dhammaan xuduudaha dalkeeda gaadho in maamul goboleedada iyaguna dowladaha gaarka ah ka dhistay gudaha ee dalku u kala xidhan yahay inay xoog ku jiiraan oo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo intaasiba kabaha la dulmara ma lagu heli karaa hub kasta iyo ciidan kastoo la helo? waa maya. iyaday saas tahay waajibaysan yihiin waxay leeyihin taasaa iman doonta ciidankii waa la dhismayaa gobollada dalka oo dhan dowladda gacanta ku dhigaysa cadowga Etoobiyana markaa cagtaaba la marin doona. hagaag aanu dayno balse ma aha sheeko xaqiiqada ku dhisan waa khiyaaligii dhabta ah. sidaas haddaba haddii taasi ay tahay waxaan iyadana bal fiirin doonaa dhinacyada kale ee mucaaradka maxaa laga filan karaa iyagana aragtidooda waxay tahay midtaas ka duwan in hubkan uu yahay hub loo doontay in iyaga lagu muquuniyo in markaasi iyagana ay waajib ku tahay si ay u badbaadiyaan nidaamkooda masiiriga ah maamul goboleedadooda ay dhiigga u hureen hogaamiyaashooda qaaliga ah in ayaguna meel kale ugu raadsadaan taasina ay ka mid tahay difaaca dalka iyo dowladnimada. tani waxay iyadu jawaab u tahay uun dhinacaas kale. haddii haddaba taasi ay dhalato waa halka haddaba aynu ka soo fogaanay ee ay ka soo gelayaan Masar iyo Itoobiya. Masar dalka ma badbaadin kartaa oo haddii dowladdu Itoobiya iska riixdo oo bad 20 kiiloomitir damacday qarannimada Soomaaliyeed ma Masar baa keenaysa? haddiise Masar ay ka maqnaato Itoobiya hore ma u keentay iyo Kenya iyo Igad iyo safka hore iyo kuwa nabad ilaalintu admista joogta kuwa hadda dowladdu ay tartanka ugu jirto ee ay leedahay dowlad heblaayana waa ka eryeynaa dowlad heblaayana waa soo gelinaynaa ma hayaan dowlad Soomaaliyeed awood ay ku dhisaan. iyaduna waa khiyaali kale. haddaba haddii ay saas tahay hubkan hadda xaqiiqatan wax natiijo ah oo soo sidaa Soomaaliya ma jiro. hubkan waa hubka u dhammaystiri lahaa inta hadda la haysto isla markaana keeni lahaa halkii 34 sano ka hor la joogay in lagu noqdo. sababtoo ah hubkani ma keenayo in Soomaalida xoog lagu muquuniyo mana keenayo in cadow lagu weeraro. isweydii hubkii Masar hadda dowladdu u keentay faraha badan markabkan ay kooxahan ku dabaaldegayaan kuwa kale soo socda Turkiga dhammaan dowladaha Soomaaliya heshiiska la gashay waxay u keenaan haddiiba ay dhacdo oo Soomaaliya maanta ay taasoo huba urursanayso Itoobiya oo damac ka galay dhul Soomaaliyeed xagee ayay Soomaaliya u maraysaa Itoobiya? soo ma ogin dalkeennii hadda inuu maamul u kala qaybsan yahay maamuladaas ay ka jiraan dowlado kala duwan dowladahaas qaarkood Itoobiyaba ay gacan saar la leeyihiin ama heshiiskaba la soo galeen hadda ay dowladdu ku horjeedo. soo marka hore ma aha hubka hadda lala soo degay haddii dowladdu dadka u sheegayso in ciidamada Itoobiya iyo faragelin lagula dagaalamayo oo Masar ay soo gurmatay Soomaaliya soo marka hore ma aha hubkan lagu tijaabiyo maamulada ay Itoobiya gacan saarka leeyihiin. marka kuwaas laga farxasho ee laga adkaado unbaa loo gudbi doonaa Itoobiyadii damaca waalan lahay soo ma. haddii ay saas tahay xalku xaggee buu jiraa? xalkuma wuxuu jiraa dalal Soomaaliya heshiisyo difaac la soo gasho hubkii oo markaasi la soo hurgufo dowladda lagu soo daayo. run ahaantii halkaas ayuu xaalku taagan yahay. natiijada hubka iyo Soomaaliya
iyo waayaha ay leedahay waayihii hore ay yeelatay marka aynu ka fogeyno maanta loolanka madaxa loo gelinayo ugu yaraan ee Masar iyo Ethiopia iyo kala taageeridda dhinacyada hubka Soomaaliya khatarahaasuu ku leeyahay waana waxa loo baahnaa waqtigan haddii la rabo nidaamka dawliga Soomaaliya inta baahida loo qabo mooye inta kale in dalkan laga fogeeyo hubku inuu xarkaha ku soo goosto ugu yaraan xayndaabku uu ahaado in cunaqabatayntii hubka ee qayb ahaan uun xakamaynaysay inay jirto in hoggaanada Soomaaliduna isku dayaan waxa ay hubka uga baahan yihiin inay tahay in ammaankooda ay sugaan in mustaqbalka tababarada ciidamada iyo dalka dib u heshiisiintiisa la dhiso ammaanka guud la sugo intaasay maanta Soomaaliya uga baahnayd hubka balse hubabka military maraakiibta la isu rarayo awoodaha dawladnimo marxaladaheeda hadda soo fool leh isha ayaynu ku hayn doonaa halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa waxa kale oo ugu dambayn hubkan maanta soo gaaray Soomaaliya ee ka yimid Masar oo iyadana saameyn ku yeelan doona khilaafkii u dhaxeeyay Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya dabcan tanna faa'iido uma leh xiisadii unba cirka ku sii shareeraysa horey baa looga hadlay waxay iyaduna keenaysaa uun in Soomaaliya ay noqoto garoon ay isku hardiyaan Ethiopia oo hore dhashay iyo Masar oo rabta iyaduna inay dhasheeda soo dhigto dhinaca kale fiiriyana hubkan maanta Soomaaliya soo gaaray iyo weliba Masar iyo kuwa kasii daran oo gobolka saameyn ku yeelan doona waxaa kaloo saameyn ku yeelan doona howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya oo marka noqon doona mid markaasi bartanka u gala dawladda iska soo horjeeda muxuu ku aflaxay howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM howlgalkeedu muxuu ku guuleystay ATMIS howlgalkeedani muxuu hadda ku shaqeeyaa ma isweydiisay waxaa keliya ay ku guuleysteen howlgalladaas oo salka u dhigay waxay ahayd dawladaha howlgalkaasi ka qayb qaadanaya inay heshiis ku ahaayeen howlgalka inay markii horeba ahaayeen saaxiibo markii horeba danahooda gaarka ah iyo masaalixdooda iswaafajiyey dib ugu laabo Kenya Ethiopia oo laba dawladood oo saaxiiba istaraatiijiyado badan wadaaga way u fududaatay si nabad ah inay uga wada howlgalaan Soomaaliya Uganda saasoo kale saaxiibtinimo Ethiopia iyo Kenya ka dhaxaysa way suurta gashay inay si qurux badan oo heshiis ku yihiin howlgalkan masaalixdooda uga fiirsadaan iyagu u heshiiyaan waxaana korka ka sii maamulayay midowga Afrika waxaana sii maalgelinaya heshiiska ahaayeen qaramada midooba u fiirsa marka saameyn intee la eegaya howlgalka cusub ku yeelan kartaa Masar oo Ethiopia cadow la ah oo ciidamada howlgalka lagu soo daray Ethiopia oo joogitaankeedu dalka rasmi ku yahay hadday hesho oo loo ogolaaday inay ku biirto ciidamada nabad ilaalinta iyo haddii kaleba ayna iyadu dhinacnaba u siqayn xaqiiq iyadana howlgalka cusub ee soo socda inay gilgili doonto taasi balse qorshaheeda iyo dhibaatooyinka ay yeelan doonto waa shaqo u taalla midowga Afrika igad iyo dalalka maalgeliya oo haddaba qaarkood ay walaac ka muujiyeen ay sheegeen in xaaladahaas ay adag tahay sidii khataraheeda looga gudbi lahaa waana sababta keenaysa in dawladaha saameynta kule gobolka sida igad midowga Afrika Mareykanka iyo dhammaan dawladaha maalgeliya howlgallada Soomaaliya inay hadda culayska saarayaan in labada dhinac ay khilaafkooda ku xalliyaan miiska wada hadalka ma laga aqbali doonaa Masar iyo Soomaaliya inay xaaladaas iyagu ka faramaroojiyaan diblomaasiyadda caalamiga iyadana waa xisaab kale oo isha lagu hayn doono wararkaas iyo wixii ka soo kordha iyo xaaladaha khatarta ah iyo warbixinadeena halkan musalsalka inoo ahaan doona ee hubka iyo Soomaaliya halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa